sidaad la socotaan muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan gobolka Sanaag waxaa ka socday dadaalo nabadeed oo la doonayay in lagu heshiisiyo laba beelood oo dhowaan ku dagaalantay Togolaashimo ee hoos yimaada deegaanka Carmale ee gobolka Sanaag oo wax ka yar 75 kiiloomitir u jira magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Dadaalada ay garwadeen ka ahaayeen isma dhaqan, salaadiin siyaasiyiin iyo sidoo kale waxgaradka bulshada qaybaheeda kala duwan oo ka socday deegaanka Carmale ee gobolka Sanaag ayaa lagu soo warramayaa in markaasi uu hakad ku yimid kadib markii dhinacyadii wadahadallada iyo sidoo kale dib u heshiisiinta loo sameynayay ay ismarin waa markaasi adag oo ay ka dhex taagantay qodobada qaar ee la doonayay in markaasi mid kasta oo ka mid ah uu ka tanaasulana uu ku adkaystay. Sida xogaha ay tilmaamayaan waxaa markaasi jira in weli ismarin waa aad u xoogan uu ka taagan yahay labadii dhinac ee la doonayay in lagu heshiisiyo deegaanka Carmale, kuwaasoo dagaal aad u xoogan uu ku dhex maray Togolaashimo islamarkaana ay kaga dhinteen dad badan oo aad markaasi u badan, islamarkaana shacab iyo dhinacyadii dagaalamaya isugu jira. Dagaalka 2 maalmood ayuu qaatay waxaana markaasi ku nafwaayey wax ka badan 35 qof halka in ka badan 25 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana lagu guuleystay in labadii dhinac ee halkaasi ku dagaalamayay heshiis xabad joojin ah la dhex dhigo islamarkaana dagaalka ay si kooban u joojiyaan miiska wadahadalkana ay soo aadaan. Kadib markii ay miiska wadahadalka isugu yimaadeen dhinacyada, dhexdhexaadiyaasha ayaa bilaabay inay u kala dabqaadaan labadii dhinac ee halkaasi ku dagaalamay, waxaana dhexdhexaadiyaasha hogaaminayay isma dhaqan oo ka soo jeeda gobolka Sanaag, kuwaasoo iyagu markaasi u istaagay in labada beelood ee walaalaha ah heshiis rasmi ah la dhex dhigo islamarkaana dib aysan dagaal dambe halkaasi uusan ugu dhex marin. Waxaa gebi ahaanba marka la soo warinayaa in dadaaladii nabadeed ee halkaasi ka socday waqti xaadirkan hakad ku yimid kadib markii shuruudaha labada dhinac ay noqdeen kuwa aad u adag. Sida xogaha ay tilmaamayaan, mid ka mid ah labada beelood ee halkaasi ku dagaalantay ayaa waxay soo jeedisay in beelihii halkaasi ku dagaalamay mid ka mid ah markaasi gebi ahaanba aagagii lagu dagaalamay ee muranka uu ka taagnaa ay isaga guuraan islamarkaana ay dib ugu laabtaan nawaaxiga magaalada Ceerigaabo oo markii horeba ay markaasi ka soo gureen sida ay hadalka u dhigeen. Xogo hoose oo soo gaaraya Kaalmooy Media islamarkaana aynu ka soo xignay ila ka agdhow dhexdhexaadiyaasha ayaa waxay sheegeen in mid ka mid ah beelaha ay soo jeedisay in gebi ahaanba dadkii ka soo barakacay islamarkaana ka soo qaxay nawaaxiga magaalada Ceerigaabo iyo sidoo kale gudaha magaalada Ceerigaaboba ay dib ugu laabtaan halkii ay ka soo hayaameen markii hore, islamarkaana wixii markaasi ka dambeeya ay wada hadalka iyo sidoo kale heshiis rasmi ah ay qaataan ay aqbali doonaan, laakiin inta ka horeysa marnaba aysan diyaar u ahayn inay la heshiiyaan dad markaasi deegaanadoodii ka soo cararay islamarkaana dhulkooda kula dagaalamaya. Arrinkan ayaa lagu tilmaamay mid markaasi xaalad cakiran geliyey wadahadalladii labada dhinac u socday, waxaana hadda markaasi gebi ahaanba istaagay wadahadalladii labada dhinac iyo sidoo kale dhexdhexaadintii socotay. Laakiin dhinacyada dhexdhexaadinta waday oo isugu jira siyaasiyiin iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay maamulka Puntland, isma dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka iyo dhalinyarada ayaa weli markaasi ku dadaalaya in ugu yaraan xal la gaaro islamarkaana dagaalka si kooban loo joojiyo, wixii intaasi ka dambeeyana laga wada hadlo dhammaan qodobada la isku marilaasan yahay. waxaa markaasi muuqata waqti xaadirkan in xaalad cabsi ah ay taagan tahay, suuragalna ay tahay in mar kale dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay uu dib ugu dhex qarxa dagaal, iyada oo dhinaca kale markaa la soo warinayo in ismariwaagan iyo sidoo kale in xaaladdu ay cakiranto lagu eedeynayo suldaanka guud ee beesha Warsangeli Suldaan Siciid